xidhay dhaxan baanu seexanay moobilada wana laga qaatay oo caruurtayada inagoo u ooyana nalaga soo kaxeeyay annagu maamul ahaan degmada Buurtule maamulkeeda waxaan aad iyo aad u soo dhaweynay oo tan iyo galabta iyo amniga iyo booliska aanu ka hortagnay hawd kaga sii hortagnay caawa maxkamadii dadkaas oo saaka waxa weeye laga soo barakiciyay Somaliland maadaama waxa weeye dad masaakiin ay ahaayeen oo wax weeye wadankooda ka xamaan jiro dad Soomaaliyeed ay ahaayeen shacabka Soomaaliyeedna aysan inahay in la siyaasadeeyo dadkaas oo hawd badan maanta soo jira iyo dhibaato badan iyo rafaad badan maamulka Buurtule isku duuban xogayaha iyo waxa weeye imaamada iyo dowlad ahaan waxaanu kaga hortagnay meesha waxaanu karaanka iyaga waxa weeye kari karno sidii waxa weeye dadku waxa weeye waxaan gurmad fiican loola soo gaaro si biyo loola soo gaaro halkan waxa maraya 12 baabuur oo u badan yihiin ciyaal haween u badan yihiin oo u badan yihiin dad mataqaana xana yahay daadooda 60 iyo ka sareeya yihiin dadkan waa garan karaysaa dhibaatada ku imaan karaysa ama safarka masiibada ku imaan karaysa waad garan karaysaan waa masiibo aad u weyn weeye haddana waxaan xog nagu soo gaaraysaa in dad ciyaal ah carruur iyo hooyo in soo kala qaaday baada xogta nagu soo gaaraysaa iyo hooyooyin ka dhex qaylinayaan baabuurta dhexdeeda ka dhex qaylinayaan waxaan leenahay ilaahay ka baqa gaalas ugu laabtay reer Soomaaliland arintan arrin fiican maahan bal iska daaya waxa weeye arintan masiibo xun inaad kala kulantaan baan u taagnaa halkaas waxaan soo dhaweynay intii aan awoodnay baan soo dhaweynay wayna nagu leeyihiin waa walaalaheen wadad Soomaaliyeed waa dad shacaba oo waxa way jilicsan oo dhalinyaro iyo hooyooyin carruur isugu jira sida aan riboodka ku helayna waxa way laga soo tarxilay magaalada Laascaanood galabtan riboodkoodna soo gaaray una diyaar garownay si wanaagsan aan u soo dhaweynay waxaan rabaa inaan inta ku daro waxay nagu soo beegneen xilli habeena maadaama destinationka iyo meesha ay ku socdeen aysan ahayn degmada Buurtule ee anaga transit nagu ahaayeen intaan karaynay ayaan soo dhaweynay haddana waxaan jecelahay in safarkooda sii wataan waxaan u awoodnana aan ku taageernaa qaar ka mid ah ehelada shacabka oo la soo tarxilay oo Garowe ka yimid ayaa u mahadceliyay maamulka iyo shacabka degmada Buurtule ee gobolka Nugaal ayagoona Soomaaliland ugu baaqay inay dhibaato u geysatay dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya hadda waxaan ka imid Garowe dadkaasana baad goobayay saaka waxa noo sheegay dadka in Laascaano laga soo qaaday hoodka iyo duurka ay ku jiraan dadkaas waa u jeedaan oo dad maata ah aruur iyo dumar iyo ilaahay ku roon yahay oo dad maata ah u badan yihiin iyo dad dhalinyaro ah dadkan waxa laga soo barakaciyay oo laga soo raafay laga soo tarxiilay waxa laga soo tarxiilay magaalada Laascaanood sida aan warku ku hayno Soomaali diidayso Somaliland hadday Soomaali diidayso islaamnimadana ma ilowday waxa walaalo ku nahay Soomaalida oo dhan waxay walaalo ku tahay la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah qof islaam ee Soomaaliya hantidiisi in la dhaco oo la soo qabto oo la South Africa kama dhigin Soomaalina Soomaali waa wada degan tahay Soomaali dalka waa wada degan tahay shacabka Soomaaliyeed waa wada degan yahay meel kasta waa wada habeen madow baanagoo caruurteeda haysana caruurteena laga soo kaxaystay oo nolugina caruurna kuma kaxaysanaysaana socda xidhay dhaxan baanu seexanay moobilada wana laga qaatay oo caruurtayada inagoo u ooyana nalaga soo kaxeeyay oo nolugu yiri orda caruurna ma haysanaysaana orda bila caruure waana la soo baaciyay caruurtiin wana laga haysaa oo gurigayga alaabtayda waxay wana haysta hooyooyinkayga way naga maqan yihiin oo moobilada iyadii waxayagii oo dhan waa laga haysta gawaari baa lagu soo guray xalay hataa man casheen oo saaka maan quraacan sidii waan ilaa aad ku joogno dadka waxbana looma sheegin waxaan ku ganacsan jirnay magaalada waxa la rabay dadka hadii hataa la kaxeynayo in wax loo sheego la yiraahdo marka hore alaabtiin iyo wixii diyaarsada waa lagu kaxeynaya laakiin waxbana looma sheegin dadka